Madara Uchiha wuxuu aaminsan yahay in dunida waxa niman tahay wareeg dheer aan dhammaan lahayn xanuun zaa'id ah oo silic ku haysan dagaalku ma ahayn shil ee wuxuu ahaa dabeecad bini'aadan wuxuu aaminsan yahay meel kasta oo iftiin jiro inuu jiri doono hoos ka sameysmaya iftiinka meesha ku yaala meel kasta oo guuleysta joogana sidoo kale wuxuu aaminsan yahay inuu jiri doono guuldareysta nabaduna waa kaliya hakad u dhaxeeya laba masiibo markii uu waayay walaalihiis qabiilkiisii iyo ugu dambeyn riyadii Hashirama Madara wuxuu go'aansaday in bini'aadamku una awoodin fahan dhab ah inta dad badan ay ku nool yihiin xaqiiqooyin kala duwan khilaafku weligiis ma dhammaan doono taasina waa sababta uu sameeyay qorshihii ahaa Eye of the Moon mar ahayn inuu dunida oo dhan xukumo sida dad badan ay u maleynayaan laakiin inuu mudeeyo dhammaan qalbiyada ay khiyaali iyo kaliya xumaantu dhex buuxisay duni aan lahayn kala duwanaansho iyo khilaaf midna si aanu qofna qofka u dhaawicin Madara wuxuu arkay rabitaanka xorriyadda inuu yahay silic kasta oo u maro si uu gaaro xorriyadiisa haddii xaqiiqadu nimadkeedu xaqiiqada daftarkeeda waa in la bedelaa dunida ma aha meel cadaalad ah tan waa runta dad badan aqbali doona waxa ku noolahay duni uu qof walba la dagaalamayo wuxuu aaminsan yahay laakiin dhibaatadu waxay tahay qof walba wuxuu aaminsan yahay inuu isagu saxsan yahay qalbiyada dadka ma aha kuwa isku mid ah qof walba wuxuu xambaarsan yahay xanuun isagoo gaar ah qof walba wuxuu leeyahay sheeko gaar ah una difaacanaya sidee markaas suurtagal ku tahay in la helo nabad dhab ah Madara wuxuu aaminsan yahay meel kasta oo iftiin jiro hoos inuu jiri doono meel kasta oo guuleysta jirana sidoo kale guuldareysta inuu jiri doono marka hal dhinac uu farxo dhinaca kale uu oyn doono tani ma aha wax ku meel gaar ah tani waa nidaamka ay dunidu u dhisan tahay dagaalku ma aha shay loo kaliya waa natiijo ka dhalata kala duwanaanshaha qalbiyada bini'aadamka dadku waxay ku riyoodaan nabad laakiin ma fahmaan qiimaha dhabta ah ee leedahay nabadu ma aha wax fudud nabadu waxay u baahan tahay in la tirtiro khilaafka laakiin khilaafku wuxuu ka yimaadaa midda ugu horeysa ee asaasiga u ah bini'aadamka taasoo ah xorriyadiisa xorriyadu waa waxa ka dhigaya qofku inuu noqdo qof dhammaystiran laakiin isla xorriyadaas ayaa dhalisa kala duwanaanshaha muranka iyo dagaalkaba marka qof kasta uu xor yahay inuu doorto wuxuu aaminsan yahay markaas khilaafku waa lama huraan waxaan arkay saaxiibo isku bedela cadow waxaan arkay riyooyin burburay waxaana arkay dad doonaya nabad laakiin ku dhamaaday ugu dambeyntii dagaal waxaan waayay walaalahay waxaan waayay qabiilkayga waxaan waayay wax kasta oo aaminsana markaan eegay dunida waxaan arkay hal xaqiiqo oo kaliya in dadku aysan weligood isfahmi karin taasina waa mid xaqiiqo ah sababtoo ah fahanku wuxuu u baahan yahay in qofku uu dareemo xanuunka qof kale laakiin qofna si dhab ah uma dareemi doono xanuunka uu dareemayo qofka waxaan ku noolahay xaqiiqooyin kala duwan xitaa haddii aan hal meel wada joogno taasi waa sababta khilaafku uusan weligiis u dhammaan doonin dadku waxay isku dayaan inay isku xalayaan dagaal iyagoo adeegsanaya awood laakiin awooddu waxay dhalisaa cabsiduna waxay dhalisaa nacaybkuna wuxuu dhalinayaa dagaal cusub waa wareeg aan dhammaan lahayn waa wareeg aan dhammaad lahayn markaas waxaan isweydiinayaa sidee loo jebin karaa wareega sidee loo joojin karaa xanuunka aan dhammaadka lahayn jawaabtu ma ahayn dagaal mana ahayn guul jawaabtu waxay ahayd in la bedelo nidaamka laftiisa haddii xaqiiqadu dhalinaysa xanuun markaas xaqiiqada laftirkeeda ayaa u baahan in la bedelo dunidan waxay ku dhisan tahay kala duwanaansho qof walba waa gaar qof walbaana wuxuu leeyahay rabitaan u gaar isaga laakiin kala duwanaanshahan ayaa ah asalka khilaafka haddii aan tirtiro kala duwanaanshaha markaas khilaafku wuu baaba'ayaa haddii dhammaan qalbiyo noqdaan hal markaas cidna cid kale ma nacbaan doonto haddii dhammaan dadku ay wadaagaan hal xaqiiqo markaas ma jiri doono wax muran ah taasi waa sababta aan u doorto anigu dariiqan in la midoobo ma ahayn rabitaan xukun ah mana ahayn doonis awood ah waxay ahayd rabitaan iyo nabad aan lahayn xanuun nabad aan lahayn khasaaro nabad aan lahayn dagaal